1400 akoontiga miyay kugu soo dhacday mise guriga ayadoo cheega ma kugu imaaday haddaba hadaadan wali helin waxaa jira malaayiin Mareykana oo already mar hore helay waa salaamantiin meel walba joogtaan waxaan idin wadaa in lacagtii IRS ay soo fasaxday isla markiiba ay malaayiin qof oo Mareykan helaan akoontigooda u soo dhacday maalintii Khamiista ayuu madaxweyne Biden saxiixay American Rescue Plan isla jimcadii shalay ahayd waxaa bilaabatay in dadka IRS ay siiyaan dadkii akoontiyaasha ka hayeen waa dadkii canshuurta xareeyay 2019 ama 2020 oo yaraan dad badan ay lacag badan siiyeen sidii warbaahinta sheegayso shalo jimca ilaa xalay dad ay akoonada ugu soo dhaceysay waayo stimulus checkan waa wuxuu noqon doonaa midkii hore iyo labaad ka dhaqsida badan dhaqso ayaana mataqaana IRS ta qof walba akoontigiisa ugu soo shubaysaa waa dadka kaliya xareeyay 2019 ama 2020 canshuur haddaba hadaada 2019 ama 2020 canshuur xareenin waxaa lagaaga baahan yahay inaad xareysid waayo stimulus checkan saddexaad wuxuu ku saabsan yahay kaliya dadka canshuur 2019 ama 2020 xareeyay haddii aad lacag soo binin 2019 iyo 2020 fadlan canshuur qofka canshuurta xareeyay u tag 00 gali akoontigaaga sida lacagtan kugu soo dhacdo stimulus check saddexaad waxaan rajaynayaa weekendigan maanta sabtiya ilaa axadda in malaayiin kale oo Mareykan la siin doono qaasatan dadka akoontigooda la haayo soo akoontigaaga ka warqab 1400 way ku socotaa waana la bilaabo IRS way bilowday in ay lacagta siiso shalo jimca stimulus check wuxuu noqonaa kii ugu dhaqsidaha badnaa sidoo kale waxaan idin sheegayaa arin aad bad news ah qaasatan dadka lacagta debt collectors ka ku leeyahay ama collectionada ku jiro dadkaas oo lacagta lagu leeyahay lacagta ku lahaanayo private companies ka ama credit cardada biilkan American Rescue Plan markii la ansixinayay protection ma ku jirin dadka lacagta lagu leeyahay waayo budget reconciliation ayay dhahaan oo filibusterka ka cararayeen 60 ka xildhibaan oo aqalka sare in mataqaana hal dheeri ay rabeen sidaas daraadeed kuwa debt collectionada ayaa waxay heleen jid ee $1400 hadii lacag ku leeyihiin akoontiga kala bixi karaan cid hor istaagi kartana male waayo sharcigan ma protect garanayo dadka diimaha lagu leeyahay hadii lacag lagu leeyahay collection oo kugu leeyahay private company oo kugu leeyahay sida mataqaana Walmart Macy's oo kale ama private hospitalada oo kale lacag oo collection aad ku jirtid telefoonada Verizon T-Mobile AT waxa la xiriirtaa debt collector-ka u sheeg waxa ku dhaxdaa in difficulties ama arin dib ay ku haysato lacagta 1400 lagu baahan tahay sida lacagtaada kaaga akoontiga kala bixin waayo sharcigan ma protect garanayo dadka sidaas oo kale ah debt collectorada debt collection yaasha agencies-ka waxay xaq u leeyihiin in akoontiga 1400 kala baxaan haddaba fadlan la xiriir hadaad sugayso 1400 waxaa la xiriirtaa debt collectionada u sheeg inaad u baahan tahay caawitaan inay faraha ka qaadaan in lacagtaada akoontiga aysan kala bixin gunaanadkii waxaa idin sheegayaa in wali uu furan yahay barnaamijkii paycheck protection program ilaa March 31 uu furan yahay fadlan hadaad small business tahay iska joosiya leedahay ka faa'iideyso xaree barnaamijka sida lacag ku heshid gross income kaaga ayaa la isticmaalayaa ama waxaad helaysaa 30,000 ama 20,000 ama 10,000 hadaad 1099 leedahay gross income kaaga whatever lacag ay tahay ayaa la isticmaalayaa fadlan ka faa'iideyso ka buuxso bangiyada small business leedahay Mareykan dacaladiis joogtid hadii aad Columbus joogtid caawitaan u baahan tahay barnaamijkan aniga ayaan diyaar fadlan ugu imaada banaadir xafiiska 31 ana idin ka caawinayo waxaan ku soo afmeerayaa lacagtii way soo socotaa $1400 ahead akoontigiina ka warsuga weekendigan shalo jimca ayay bilaabatay wayna soconaysaa weegan maalinta isniinta ay IRS waxay dhahday waxaan furaynaa portal irs.gov oo dadka ay kala socon karaan jeegooda ama lacagtooda goorta akoontiga u soo dhacayso haddaba isniinta booqo irs.gov meesha stimulus payment-ka fiiri macluumaadka information-ka gelinaysaa goorta lacagta ku soo dhacayso ayaad ogaanaysaa waa maxamed faarax fadlan channelka YouTube subscribe garee ila noqo saaxiib fikradaada ka dhiibo videogaana la wadaag saaxiibada iyo familkaaga iyo dhammaan ummadda jaaliyadda Soomaalida ku nool Mareykanka dhamaantiin waa salaamantihiin